shirka qaranka ayaa waxa ay ka warameen inay ku bogaadinayaan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxqabadka ballaaran ee ay ka hirgelisay dalka tan iyo muddadii ay xilka qabatay xukuumaddaasi waxa ay sheegeen in tallaabooyinka horumarneed ee dalka haatan ka muuqda ay yihiin kuwa cid kastaaba ay ka garaabayso isla markaasina sare u qaaday maqaamka Somaliland ee gudaha wadanka iyo dhinaca arrimaha dibadda iyagoo sheegay bay yiraahdeen in waxqabadkaasi uu sabab u noqday inay soo jaleecaan isla markaasina ay indho caafimaad qaba ku eegaan dunidu sida ay horumarka diyaarka ugu tahay mujtamaca Somaliland waxa kale oo ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan murashaxnimada jagada madaxweynaha ee shanta sano ee soo socota ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo arrimahaas iyo qodobo kale iyagoo ka hadlaya waxa ay ku bilaabayaan hadalkooda waxaan iyadana doonaynaa oo farxad weyn runtii la gelisay inaanu hambalyeeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo sida wasiirka warfaafinta uu ku dhawaaqay sheegay inuu musharax madaxweyne shanta sanadood ee dambe soo socda uu yahay taana waanu hambalyeeynaa inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu shanta sanadood soo socda uu noqdo musharax madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo aad iyo aad baan u hambalyeeynaa waa madaxweyne waxqabadka waa madaxweynihii ummadda ilaa bari ilaa galbeed si fiican dalka wax uga qabtay waxaanu hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaanu ku amaanaynaa oo ku hambalyeynaa waxqabadka waa madaxweynihii horumarka dalka waa madaxweynihii dawladdiisu ay noqotay dawladdii waxqabadka horumarka waxa aanu hadaa leeyahay kadaliya kala waliba anigu aad ugu hambalyeynaya idaacada goor walba baxaysa ee quraanka kariimka ee taajinada ku galaysan madaxweyne waaba taa musharaxnimadiisa waan taageerin runtii waxaanu ku taageeraynaa wax muuqdaan ku taageeraynaa oo haddii la yidhaaha la tiriyo aan la tirin bakaray la tirin kari maayo laakiin kuwa ugu culusi waxaa ka koowa ciidanka qaranka oo marka imika uu tiifiyada ka soo baxo ee sidaa u safeeyay garbahooda waxa saaran aad tacajabayso cuqaasha waxgaradka iyo odayaasha gobolka Maroodijeex waxa ay geesta kale ugu baaqeen dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa guud ahaan gobolka Maroodijeex iyo Somaliland in ay si weyn u muujiyaan maalinta qaran ee qiimaha weyn ugu fadhida qaranka Somaliland 18 May 18 May oo ah maalin weyn oo maalin qaran ah in dadweynaha Somaliland si muglaay ugu soo baxaan iyagoo nabadgelyadoodana ilaashanaya waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaa maalin qaran 18 May in dadweynuhu Somaliland si mugla ugu soo baxaan